waxaana dhalinyaro Soomaaliyeed oo miiriyad ka shaqeysa oo qurbaha ka timid markay arkeen dhibaatada ka jirta xiriyaha qaxootiga iyo dadka ka soo lugeynaya dhanka Soomaaliya oo Kenya soo galiya markay maqleen dhibaatooyinka faraha badan ee ku dhacay dadkaas ayaan waxaan go'aansanay in aan meesha aadno oo marka ugu horeysa soo ogaano xaaladda dhibta meesha ugu daran ay ka taagan tahay iyo sida arrintu tahay iyo dadkan soo qaxaya meelaha kala duwan ay ka kala yimaadeen si aanu ugu soo celino waxa akhbaaraadkaas aan soo duubnay iyo waraysiyaasha aan soo sameynay dadka qurbaha jooga waxaan go'aan gaarnay in xilligan ay tahay xilligii Soomaalidu ay Soomaalida caawin lahayd maadaama anagu aan miidiyad ku jirno oo dad far badan oo Soomaaliya qurbaha jooga iyo Soomaali joogaba ay yaqaanaan waxaan go'aan gaarnay in aanu qaadno arrintan oo dhabar ka saarno oo aan u soo gudbino wixii jira dadka qurbaha jooga dadka Soomaali jooga mid kalena waxa weeye markii aan aragnay dhibaatooyinka taagan ayaan waxaan la hadalnay asxaabaheena Facebook oo dad badan ay nagu xiran yihiin waxaan halkaas aan aadaynaa hadii aad rabto wixii lacag halkaan waxaan noogu soo dirtaa magacyadayada lacag far badan oo ay dadkaas noo soo direen lacagtii ayaanu isla mar ahaantaas inta soo qaadnay alaabo ku iibinay oo safarkii aanu aadaynay dadkii qaxootiga meesha jooga aan u qaybinay haddaan warbixin yara idinka siiyo xaaladda meesha ka taagan horta xaaladda meesha ka taagan waa xaalad aad iyo aad u xun dhibaatooyin aan la qiyaasi karin waxyaabo buugaagta kaliya lagu qor ama filmaanta ku aragtid ayaa meesha ka taagan mana la soo koobi karo dhibta meesha ka jirta dadka qaxootiga waxay u kala qaybsan labo waxay ka kala yimaadeen horta 8 gobolada Soomaaliya oo dhibaatooyinka taagan tahay sida ogsoontiin abaaraha hadda jira waa abaarihii ugu xumaa ee muddo laga joogo 6 sano dadkan laba nooc ay kala ahaayeen dad soo lugeeyay 30 maalmood 40 maalmood oo dad fara badan ay jidka uga soo dhinteen iyo dad gaari soo raacay basa soo raacay oo beerahoodii soo iibiyay ama xoolahoodii wixii ari ay lahayn ama geel ay lahayn ama wixii loo u soo haray intay lacag kala soo baxeen basas ku soo raacay isla mar ahaantaas kuwaasna intay jidka soo saarnaayeen dad ayaa ka soo dhintay marka dadka kulligood waxay u socdaan xariiqa qaxootiga waxay nagu yiraahdeen wixii harayna way soo socdaan wixii tay kareyna mar hore ayay soo gudbeen dadkana waxa weeye hadii aad mid u wareystid markay ku sheegayaan dadka ka dhintay xataa waxa weeye wajigooda xataa murugo kama muuqato murugadii yani way dhaafeen xilli waxay marayaan ee traumatized yihiin dadkan dhibaataysan waxay u baahan yihiin caawimaad aad u fara badan saddexda xiriyood oo dhadhaab la isku wada dhaho ah ifo dhagaxle iyo xagardheer saddexdaas qaxooti far badan ayaa jooga laakiin qaxootiga intaas kaliya kuma ekay waxay ka soo galaan xuduud Soomaaliya ilaa iyo dhadhaabna 90 kilomitir bay u dhaxaysaa intaas oo dhan dadku waxa weeye way soo lugeeyaan intay sii socdaan markay xuduudda Kenya soo galaan dad fara badan ayaa ka dhimanay marka waxaan anigu aan oran lahaa waxa horta marka ugu horeysa loo baahan yahay in qaxootiga soo lugeynaya in حتى أن لوسون الدعوة أو لجدوا أو دوبلي للتجا أو حتى حدود سومال لو جدوا هالكاس مرك أي سوق جليان أو أنت سومال مسول جيان عنا دي بيه راسنجي وحيد الماشي لو جي يولي دركي يدعسكي هذا يعني ما هي سان حتى دعس يكسر جيان يعني صدم مع الموقف السعودي وقياس كرتا عن كبودن متى كل حوي وحلا سماين كرايو كله مرك دتك دوبلي كسر تجان أو سعودان الدعوة إن لسمايو إن فوسوين بيا أما قاري بويدا فربنا ماشى اللي oo biyaha halkaas diyaar loo leeyahay oo cuntadii diyaar loo leeyahay oo takhaatiirta diyaar u yihiin marka intaan dhadhaab la gaarin inta ka horeyso waa in hore loo sii durkaa oo halkaas qaxootiga lagu rasiif gareeyaa waxa kale oo la sameyn karaa qaxootigan intay lugeynayaan oo xuduudda Kenya marka soo galaan hadii dadka hay'adaha ay ka baqayaan inay Soomaali u gudbaan inkastoo Soomaali ay nabad tahay oo dhanka dhowble ay nabad tahay anagu soo aragnay waxay sameyn karaan basas ayaa la keeni karaa oo dadka ka soo kaxaynaya xuduudda ka soo qaaday ilaa ay dhadhaab geynaya waxba kuma aha hay'adaha qaxootiga inay basas keenaan ama gaari baabuur looriyaal ay keenaan marka in laga hortago ayaa fiican qaxootiga oo loogu tago meesha kow ay ka soo galiyaan waxaase ka sii fiican ilaahay du yiraahdo in gobolada ay ka yimaadeen iyo magaalooyinka ay ka yimaadeen cuntada la geeyo maxaa dhadhaab loola sugiyaa markay yimaadaan inta like 100 qof markay magaalada ka soo lugeyso 15 ayaa dhadhaab gaaris inta kale oo dhan jidka ku dhimanaya marka maxaa sababaya in dadka qaxootiga la yiraahdo noo imaada haddaad ku guuleysatid oo dhadhaab soo gaartid winner baa tahay qofkii guuleysata marka qaxooti baa ka dhigeena waa inaad 3 maalmood sugtaa inta is register gareynaysid marka waxa ugu fiican in la tago meesha ay degan yihiin oo halkaas dadka loogu geeyo cuntada iyo maxaa ku dhaxtaa loo sameeyo markii cuntada la siiyo la dharjiyo shaqooyin beerahoodii loo habeeyo marka waxyaalo far badan ayaa la sameyn karaa